munaasabad lagu daafurayay dhismayaal cusub oo loo sameeyay dugsiga hoose dhexe Tayo ee degmada Yube ee gobolka Sanaag ayaa maanta lagu qabtay barxadda dugsigaas ee magaalada Yube. dugsigan oo ay hirgelintiisa iska kaashadeen qurba joogta deegaanka Yube iyo dadka gudahaba ayaa waxa munaasabadii daafurka dugsigaasi ka soo qayb galay madax dhaqameed, waalidiin, haween, maamulka dugsiga iyo marti sharaf tiro badan. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay xubno tiro badan oo ay ka mid yihiin maamulaha dugsiga Tayo iyo injineer Siciid Axmed Maxamed oo isagu wakiil ka ahaa hirgelinta dhismaha dugsigan. ilaah baa mahad leh. marka labaadna waxaan mahadinayaa bulshada halka isugu timi oo ay u mudan yihiin macallimiinta dugsiga soo waday oo ay ku xigaan qurba joogta iyo qolqol joogta ilaa iyo 2010 bishii tobnaad 10keedii nala soo waday. waxaan kaloo u maqnaqayaa waalidiinta aanu caruurta u haynay oo si adag noo garab taagneed. waxaan si khaas ah ugu sii mahadnaqayaa guddida iskuulka ee nala waday oo markasta oo caqabadii nagu timaada gacan nagu siinaysay. intaas oo dhan waa u mahadnaqayaa. waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha reer Yube oo dhan dhammaantii sidan sharafta leh nagala soo qayb galay xafladda tan. waxaan u mahadnaqayaa saxaafadan nala joogta oo noo soo saciiday oo 100 kiiloomitir saaka nooga soo kalahday. waxaan u mahadnaqayaa bulshaweynta islaamka oo dhan oo meelay joogtaba cidii gacanna si waan u mahadnaqayaa. cidii aan gacanna siin oo dhismahan iskuulka naga siina waxaanu leenahay haddaad gacanta markii hore dib nooga laabanayseen haddan waana aragtaa Tayo way tallaabsatay gacantana siiya. waxaan kaloo ku sii darayaa insha Allah tacaala bulshada reer Yube dhamaanteed waxbarashada in kor loo qaado oo waliba labada dugsi hoose dhexe iyo secondary-ga hadda inoo shaqeeya saddexdaba reer Yube hareeraha iska taagaan oo ay noqoto barbarkay ka baxdaa waa bakayla galeen. anigoo ah gudoomiyaha guddiga tacliinta sare ee gobolka Sanaag iskuulkan aad iyo aad baa wasaaraddu uga warqabtaa sida quruxda badan ee loo soo agaasimayna aad iyo aad baan ula dhacsanahay. iskuulka xilligii la aasaasay haddaan in yar introduction ka iraado 2010 October baa la aasaasay. tirada ardayda lagu aasaasay waxay ahaayeen 20 arday. maanta tirada dhigatana waxa weeye iskuulka 190 arday. iskuulku ahdaafta waxyaabaha uu ku guuleystay waxaa ka mid ah inuu noqday sanadka iskuulkii ugu sarreeyay magaalada Yube buu noqday, kaalinta koowaad buu ka galay. sidaa la ajligeed waxaa laga dhabeeyay in uu noqday magacii uu la baxay oo ahaa iskuulka Tayo. tayadii waxbarashada aad iyo aad baa halka looga helay. sidoo kale iskuulku wuxuu helay oo ku guuleystay dhismaha amaanta arkaysaan ee quruxda badan iyada oo bulshada oo isku duuban ay u dadaashay. sidoo kale iskuulka insha Allah tacaala waxyaabaha aan rajaynayno inuu sanadaha soo socda uu helo waxaa ka mid ah in dhismaha loo sii ballaariyo in insha Allah tacaala ilaa secondary la gaarsiiyo. sidaa la ajligeed aad iyo aad baan u hambalyeynaa dhammaan maamulka iskuulka, macallimiinta, waalidiinta iyo ardaydaba. waxaanu u rajaynaynaa inay dadaalkaasi laabaan. 14 sano ka hor bay ahayd markaan halkan dugsiga hoose dhexe Yube ka baxay. maanta in iskuulkii labaad oo dugsi hoose dhexe ah dhismahan quruxda badan aynu xariga uga jaraynaa farxad weyn bay tahay. waxay taasi tusinaysaa in magaaladu sameynayso horumar badan oo dhinaca waxbarashada. taasi waxay tusinaysaa inay sameynayso magaaladu horumar dhinaca dhismaha. waxay sameynaysaa waxa muuqanaysa inay sameynayso horumar dhinaca ganacsiga. magaalooyin badan oo ka dhismo horeeyay ayay maanta xaqiiqiyan Yube ka horeysaa. taas waxaan oran karnaa waxay ku timi dadaalka dadka magaaladan u dhashay ay runtii geliyaan. marka waxaan idinkula dardaarmayaa reer Yube ehlu sharafka iyo khiyaarta halkan maanta joogow inay idinku baraarugsanataan waxbarashadu faa'iidada ay leedahay. caruurtiina iskuulka keentaan qarashka iyo maxaan ku raadaay waxyaabaha iskuulka ee laga qaadayo ardayga ee ardaygaaga lagu tarbiyeynayo wax lagu barayo aydin bixisaan oo jeebka gacanta gelisaan. iskuulka waxaan rajaynayaa mar labaadkan soo noqonno isagoo intan ka sii ballaartay insha Allah tacaala inaynu maxaan ku raadaa aragno. waxa mahadsan runtii iyaguna qurba joogta u dhalatay magaalada tan oo iyaguna kaalin lixaad leh ka qaatay sidii ay maxaan ku waxbarashadu ay hore ugu socon lahayd. dugsigu wuxuu ka kooban yahay 4 class, xafiis, store, waana qalabaysan yahay. insha Allah Abdullaahi Kariim maanta xafladan waxa weeye waa daafur iyo in dadweynaha lagu wareejiyo dugsigii loo dhameystiray. waxaan aad u mahadnaqaynaa Ilaahay baa mahad iska leh dadweynaha qurba joogta ah
oo gacan laxaad ka qaatay dhaqaalaha ku baxay dugsiga waxaan kaloo aad ugu mahadnaqaynaa dadka dalka jooga oo uu mudan yahay suldaanka Axmed Bashiir oo lacag badan u soo ururiyay insha Allah billahi kariim waxa weeye dugsigii waan wareejinaynaa dadweynaha caruurta u dhigato waxaan ka codsanaynaa inay ka warhayaan macallimiinta iyo ardayda iyo dugsiga waxaa iyaguna dhinacooda munaasabadaasi ka hadlay madax dhaqameed waayeel haween iyo waxgarad tiro badan oo ka soo jeeda deegaanka degmada Yube kuwaasoo soo dhaweeyay dugsigan cusub ee laga hirgeliyay degmada Yube anigu afka waalidiinta ku hadlaaya runtii waxa meesha lagu hayaa waxbarasho weeye iskuulkan waa iskuul labaad oo soo kordhay kuwa kalena waynu rajaynaynaa magaalo weyn bay noqotay waxa weeye in dadku ay waxbarashada u dadaalaan baan ku buurinayaa dadweynaha qoladan shaqada inoo qabatay iyagana waxa aan leeyahay waa intaasoo aad ugala sii dhowaataan haddii aanu nahay waalidiinta reer Yube iskuulka quruxda badan oo muddada dheer soo jiray oo maantana sii laabmay aad iyo aad baan u gudoominay waana soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay hadday tahay dadkii ka qayb qaatay qurbe hadday joogaan dalka hadday joogaan meel kasta ay joogaan waxaad leedahay ilaahay ha idinka abaalmariyo ilaah baa mahad iska leh qurbe joogta dadkii ka soo qayb qaatay iskuulka Tayo dhismihiisa aynu saaka joogno oo xariga laga jaraayo dadkii ka soo qayb qaatay ee dareeyay iyagana waa salaamaya waxaan leenahay ilaahay wax wanaagsan ha idinku bedelo maanta iyadoo la furay iskuulkii Tayo oo uu ka kooban yahay 4 galaas iyo stoorkii ilaahay baa mahadda iska leh iskuulku ma socdeen haddaanu lahayn macallimiin fiican oo ma gaareen tayada maanta la gaarsiiyay hor iyo horaan macallimiintii inta gaarsiiyay caruurta 20 ka qaaday 200 ku gaarsiiyay aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa waxaanu kale ugu mahadnaqaynaa qurba joogta ku hamiday dalka horumarkiisa iyo waxbarashadiisa soo gaarsiisay inay dadka wax barto oo caruurahoodu wax bartaan oo maanta keenay iskuulka aad aragteen oo lagu dhiganayo oo intaas halqay isugu timi oo aan ugu mahadnaqayno iyagana waa ugu dacayneen abaalmarin fiican ilaahay ka sii aakhiro ayaanu leenahay waayo ragaa yiri waxa weeye maxay tahay iskuulkan aad iyo aad u qiimo badan oo ka kooban 4 galaas xafiiska iyo stoorka aad iyo aad baan waxaan uga mahadnaqaynaa dadkii noo soo dhisay annaguna aad iyo aad baan ugu shukriyeynaa waanu gudoominay gabagabadiina halkaasi waxaa xariga laga jaray dhismayaashan cusub ee loo sameeyay dugsiga hoose dhexe ee Tayo degmada Yube Yuusuf Cabdi Xasan Cadde telefishinka caalamiga Universal degmada Yube